السلام عليكم. As you can see والله بالله gaarigaygan ku dhex jira muddo hadda hal saac gaarigana ka dhex ooyay because ma rabin ilmahayga iyo inaan ku dhex ooyo waan ka soo baxay. I just needed area baan u baahnaa maalmihii la soo dhaafay wixii muslim ahoo qof walba muslim ah uu dareemi karaa dhibaatada iyo naxdinta Falastiin dadka Falastiiniinta masaakiinta ay ku sugan yihiin والله بالله مرغوين بدن إيو محل ده دريم بدن ما دريمي والله بالله as a mom like المهيجا نبضي كوس حدان نبضي كوس كعان الحمد لله شكري صدير تودي شيف سنيان كورن الميرير أو والدين تودي هراء سواي أما حد واعي أو every day سكري منايا نعيب يلودي ليو يعني حاسنمو like in la tirtiro ba iyagu dadka yihiin oo dhan boqomiyadaas dhan in la tirtiro loo dilayo waxna aan galabsanin saqiir ah marka qaar waxa ku qabanaysa like you're just useless qof dhan oo iska noolaa tahay dareen baa leedahay waxna ma u qaban kartid dadkaas masaakiinta oo muslimiinta oo walaalahaaga ah alaa kulli xaal it's good in aska tukano oo ilaahay u barino aan tukano oo tahajjud ugu tukano oo aan salaad walba the only thing aku caawin karno dadka especially anigoo kala dareemaya like I am useless like waxa ma u qaban kari like maxaa u qaban karaa dadka Falastiin lagu dilay maanta iyo ilmahaas yar yar waxa kaliya oo qaban karo waxa weeye inaan salaada tukado inaan salaadeeda ugu duceeyo every salaad inaan tukado xasuusto u duceeyo salaad walba inaad ugu duceeysan salaad bes ugu duceeyo ducadaas kaliya ta ku kaabo dadka masaakiinta because for most of us waxba ma qaban karna aan salaad iyo duca ahayn Soomahan anyways dadka Minneapolis degan please ha ilaawina this Sunday oo soo socota in la aadayo mudaharaadka ka dhacaya uptown Minneapolis I'm gonna details halkan sarabaan soo saaraya please ha ilaawina u soo baxa Falastiin insha Allah khair insha Allah Palestine will be free one day insha Allah soo duceeyo waan idin baryayaa soo duceeyo dadkaas wax kale kuma kaabi karna aan duca ahayn hadda